markaad sidaa u aragto waxaad isoranaysaa malaha waaba kubad oo ile waadigii kubadda jeclaaye waadiga deedna lugta ku laagay deedna waaba ta lugta kusoo duubantay ile kubad maad laagin ee waxaad laatay dhagax caadiya oo meel yaalay sidoo kale markaad sidaa u aragto waxa aad moodaysaa oo aad isoranaysaa talo waxan yari muxuu ahaa ma dhagaxba waxaaba isoranaysaa tuur oo qof kale ku shiid deedna waadiga qofkii dakhray ee gabigiisaba madaxa soo qaaday waxaan intaas oo dhan uga socdaa saaxiibayaal maanta waxaan idin soo gudbinayaa mid ka mid ah xayawaanada ugu cajiibsan uguna la yaabka badan taasoo loo yaqaano motobola waa xayawaan ku nool kaymaha fidsan ee koonfurta America gaar ahaan wadamada loo yaqaano Brazil, Argentina, Uruguay iyo Bolivia iyo wadamo kale oo ku yaala koonfur America xayawaankani waxa uu leeyahay horta dabeecooyin u gaara oo Ilaahay siiyay waxa kamid ah dabeecooyinkaasi inuu isduuduubo sidii kubadii oo saacadu doon kubad noqon karo ama uu dhagaxba noqon karo sidoo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu awood u siiyay in xayawaankaasi marka uu cabsoodo ama uu dareemo in lagu soo maqan yahay uu sidoo kale isku duuduubo sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu carabkiisa dheer uu jinaca ugu tago gunta hoose hadda waa gunta hoose ee godka uu ku nool yahay waxa kale oo awood u leeyahay inuu waxyaabaha kale ee dhulka socda ay cayayaanka u cuno sababtuna waa inuu carabkiisu dheer yahayna dhegdheg dhow leeyahay dhegdhegaasina uu keeniyo in deedna uu soo cuno waxyaabaha kale ee uu caanka ku yahay waxa kamida xayawaankani horta waa mid dabar go'ay oo wadamadaasi waa ku yar yahay ama dunidaba waa ku yar yahay cidiyo dhaadheer buu leeyahay cidiyahaasi dumarka ayaa gashada deedna waarsi badan baa ka jira sababtaasina aad baa loogu ilaaliyaa marka xayawaankan dhererkiisa waxa lagu qiyaasaa 22 ilaa 33 cm sidoo kale culayskiisa isaguna waa 1.6 kilogram daawadayaal muuqaalo badan maanu idin haynaa oo kuwan oo kala waxaanu dileenahay si fogeeya meel fog si gaarsiya hadii Ilaahay yiraahdo